maalinta aad guursato gabar familkeeda aan la aqoonin oo aad geeriyooto caruurtaada halis ayay ku jiraan familkaagana walwal iyo kurbo iyo caloolyow ayaad u horseedi doontaa haddaba haddii aad guur qalada oo hoosa aad guursatay sax oo isbar familkaaga iyo familka gabadha aad guursatay caruurta aad sida hoos uga dhashay haddii kale one day waxaa ka shalayn doona caruurtaada oo halis geli doono waxaa ka shalayn doona waalidiinta iyo walaalaha wixii kaa dambeeyo oo dhibsan doona qaabka caruurtaada u dayacday adigana aqri su'aal laga weydiinaa ogeysiis isbitaalka takhasusiga muqdisho waxaa imaanaya soddonkooda May Dr. Sanjeeb Kumar Behra oo dhashay dalka Hindiya kuna takhasusay qallimada beddelista jilbaha simaha iyo seedaha ACL isdiiwaangelintu way socotaa ee horuu soo gaar isbitaalku ku yaala xaafadda Tawfiiq Ex Television ka faa'iidaysi wacan salaamullaahi calaykum saaxiib yaal soo dhawaada waa mar kale barnaamijkii baafinta baadigoobka ummadda Soomaaliyeed ee Lintir anigu Cabdilcasiis Riile adna waxaa taala jiraha la joogaha barnaamijka saaxiibada caawiya muuqaalada sheergaray war hooy khudbasiro iska ilaali khudbasiro waxaa la yidhahdaa khudbasiro dheragna maaha baahina ma ahan meesha dhihi jireen khudbasiro waa halis waa tan aad ku weyn karto ubadkaaga diiniyan xagga iska dhig dhaqaniyan oo dhibaato yahay gabadha Soomaaliyeed waxay baadigoobaysaa wiil walaalkeeda gabaruu dhalay gabadhu ka dhalan si hoos ay isu guursadeen oo isagii uu geeriyooday gabadhina aan meel lagu ogeyn soo dhaw walaashay marka hore magacaaga oo dhameystiran iyo halka naga soo booqatay bismillaahir rahmaanir rahiim farxiyo maxamuud yuusuf alayhi ilaydaha waxaan ku sugnaa Talyaani ayaan joogaa farxiyo waxaa marti waayahay waxaa marti ku tahay barnaamijka baafinta baadigoobka ummadda Soomaaliyeed ee Lintir yaa kaa maqan oo aad baadigoobaysay oo aad barnaamijka ula soo xiriirtay waxa iga maqan Cabdicasiis wada mahadsan walaalkay oo geeriyooday ayaa waxa ugu dhahay gabar yar oo dhalay gabar ii dhashay asagan hadda wuxuu mooto yahay 12 sano intaasna anigana tahriib iyo waxbaan ku mashquulsanaa ilaahay ima qadaran marna Lintir qaabka loo helo waa la ay marka hadda ayaan isiri ilaahay ii sahlay inaan maxaa leeyahay bal iska wareysto islaamka in ilaahay ii sahlay iyo nasiibkay walaalka magaciisa oo dhameystiran noo sheeg walaalkay waxa la dhahaa Axmed Qadar Ali Afrax la dhahaa Qadar Ali Gani way dhahaan Qadar Ali Ganina waa la dhahaa Axmed Qadar Ali Afraxna waa la dhahaa marka waa isku asaga leena neystiska intaas bale waayahay walaalka Soomaaliya ka qabiilkiisa walaalkay xawaadlo waaye agoon waaye iga la xaajiyo ku siiya gabadha caruurta u dhashay ma taqaanaa magaceeda maya oo magaceedaas dhan buwan hay marka way gabadha magaceeda ay ka dhuntay gabadhii yareed oo dhashay bas magaceeda inaan hayo bas leen anigu gabadhana wax badan oo sheegi jiro yariista ma la hadashaa ma xiriirsa dadkaaga ma og tahay wax kasta waan dhigi jiraa oo marka waa anaa waqti badan in baabuur ka dhacay waa ilo gabadhii dhashay magaceedii marka waana ka xishoonaana gabadhii yareed kaliya aqaan magaceed gabadha kiilista gabadha yariista magaceedu waxaa la dhahaa Naahiye Axmed Qadar asa ku dikri jiray waa gartay walaalka caruur kale ma dhalay kadib ayuu gabar guursaday gabaraa wiil u dhashay oo 12 jir waa wiilkiisa wiil weyn waa hadda isagoo yariis oo dhintay marka hadda laakiin wiilkiisa waa weynaad 16 ilaa 17 ku socdaa marka wiilkiisa ma taqaanaa qabiilka gabadha uu guursaday ee gabadha u dhashay sa'i sheegay haye wuxuu dhahay gabadhu waa habar gidir waa cayr waa habareji waa reer gurceel uurka la aad markii Itoobiya soo burisay Itoobiya ayaa soo burisay markii Itoobiya soo gashay 2006 inay taan jeclahay ayadoo uurka 6 bil 7 bil carartay gabadhi markii waxayna aaday meeshii wuxuu yiri gurceel aaday gabadhi ay gabar ku dhashay haye asaga ima sheegin laakiin waxa la ii sheegay markaan dadka geeriis kadib wareystay inuu deganaay Caymiska gabadha Caymiska deganay guriga Caymiska xaafadda Caymiska aada ku fahmay walaalka taariikhda gabadha loo dhalay ma xasuusan kartaa da'deeda meeqa sano jir waa hadda camal gabadhiisa waqtiga uu ii sheegayo waa 2007 asagana gabadhu markaas way yar tahay inay bilowga sanadkaas dhalatay
labada kun todobadii bilaawadeedii dhalataan u malaynaa asagana bishii lixaad bishii shanaad meelahaas uu sheega marka kadibna oon ma la xiriirta un baan dhihi jiray ilaahay qadarsanaba iska buufsanaa tahriib iyo rafaad ku jiray marka ma aqaan gabadhu kama yaro 2007 kama yaro hadayna bilaawadii dhala haddii kale sanadkii karo dhammaadkiisa dhala ama kaasay dhalatay bilaawgiisii 2007 walaalka goormuu geeriyooday 2012 ayaa wiil xaafadiisa la degan oo dhalinyarada kamid ah oo xaafada la iskula soo koray oo xabad ku dhuftay qadar ilaahay ka meeshaas ugu dhintay Allah naxariisto geeridiisa ma ogaadeen familka gaar ahaan gabadh u dhashay ma ogaatay oo ma ka warqabtay dhimashadiisa ma ogi taas ma sheegi kari oo haday ka warqabto fikrad ahaan haday ka warqabto aniga ma ogi haday ka warqabto hada wiilkii telefoonadiisii iyo emailadiisii wixiisii iyo qof dhintay waaye qof kale to dhalinyaradii aan aniga wareystana ma garanayo oo asaga walaalkay aad iga yaro wax badan iga yaro oo 7 aad 8 aad noo dhaxaysay marka maadaama aan isku xignay marka walaalkay aniga maana wareysan xaaladahaas ma la xiriirta ka badan waligay ma dhihi jirin marka sidaas waay ma ogaana inayna ogeyn waa laga yaabaa qof walba qofkiisa waa soo raadsadaa idinka ma baadi goobteen oo ma isku daydeen xilligaas in uu gabadh maaragtay lahaa gabadha reerkeedii halala hadlo maadaama uu aabaheed geeriyooday baadi goob noocaas oo kale ah familka ama qoyska ma sameeyey maya aniga waa qofta ugu horeysayba ciddeena ilaahay ha u daba dhaaf hooyada xanuunsana joogto wiilku isku hooyana aniga hooyadii ayaa dhashay aabahay ma dhalin wiilku isku hooyanahay bahda hooyada oo la soo koray waay laakiin anigaaba intaas ugu roonaaday nasiib ana waqtigaasaan raadinayo ma taqaanaa deegaankii uu ku aqaalgalay oo ay isu guursadeen waxaa la dhahay meesha la yiraa aymiska walaalkaha mar kale magaciisa oo dhammaystiran nagu celi qadar cali ganey ama qadar cali afrax naanees muu lahaa sawiradiisa waa kuusoo naanees kale ma lahayn qadar cadde iyo waxaas waa la iska dhahaa iyo qadar cali ganey iyo axmed qadar cali agane iyo waxaas axmed qadar cali ganey iyo way iska dhax axmed qadar cali ganey saasay waa laga yaqaanaa soona digfeer iyo waxaas ma fahmto digfeer uu ku dhashay waayahay haddii gabadhaas iyo qoyskeeda amba gabadhii dhashay amba gabadhiina intaba qof kamid a oo muuqaalkan u gaaro amba dad yaqaano isku yaqaanaa jiri karo oo la xiriiri karo oo xog ka hayay maxaa ka codsan lahayd waxaan ka codsan lahay inay maxaa la yiraahdaa ila soo xiriir inay ii share gareeyaan oo maxaa la yiraahdaa ilana soo xiriiraan lambarkaygan waa soo diraa masawiradiisana waa soo diraa waayahay dadka Soomaaliyeed ee barnaamijka baafinta daawanayo ayana maxaa weydiisan lahayd waxaan weydiisan lahay walaalahay Soomaaliyeed inay share gareeyaan gabadhaas yartaana oo intaas maqan oo hadda anaguna qadar alla waqtigaas soo raadiyay ilaahay nasiibkii galiyay inay igu caawiyaan oo raadiyaan oo share gareeyaan haday gabadha yartaa iyo walaashayda gabadha dhashay maqlaayana soo raadiyaan lambarkayga halkan ayaan kusoo qoraa hadii ilaahay qadaray Talyaaniga ayaan joogaa gabadha walaalka uu guursaday guurka ma guur official u ahaa mise mid hoose u ahaa hoose inuu ahayeen anigu maxaa yeelay hooyadii haddaan weydiiyey waxaan dhahay hooyay ma haysaa hooyaday waxa waay dadka waxa way xanuunsana kaliyaha laga dhaqo Turkiga kaliyaha looga dhaqaa waxay tiri hooyay baadi Allah soo iftiinay laakiin wiilkaas uu ii sheegay gabadha xaamil inay tahay oo 6 bil ilaa 7 bil tahay ayadoo dadka hooyooyinka xanuunsanay haajirta weligeed markii hore xamaal lagu soo korisay ka bacdina markii dambe aniga maxaa la yiraahdaa kabaha u gasheen waxay tiri Allah ku sahlo Cabdicasiis saaba si lagu helo Ilaahay ogi marka saas way hooy waxay tiri ayadoo ba u sheegay marka kaas ayada xataa magacii ma hayso waa qof la dhaqo marna ayadaaba dhimir daboolanta ma garat marka sidaas waaya waxaan ka rabaa maadaama waxaan kala jeedaa walaalka iyo hadda xogtii wixii aysan jirin oo xog badan aan laga haynin gabadhaas ku aqoonsan kartaan haddii idin soo xiriirto gabadha waxaan ku aqoonsan karaa gabadhu hadii wiilkii masawirada ay soo diraya wiilka masawiradiisa markaad meesha saartid Cabdicasiis oo jazaakallahu markaad saartid lambarkeygana soo qor de waa la yaqaan dhalinyaradii dadku waa yaqaan kulliye waa qof dadku way soo raadsadaan waa ogahay oo dadka dhan badada soo raadsado waan arkaynaa hadii ay ayadu masawirka aqoontay taariikhdii wixii waafaqaan kulli ayada markasta way aqoonsan kartaan idinka ma aqoonsan kartaan oo ma waji taqaanana kala jeedaa
maya aniga ma weji aqaaniyo hooyadayna ma ila aha inay u tagtay weligeed ee lahayd ma fahamtay oo asagun baa aniga igu yiri farxiyo saas aad jirto anigaana hooyana uu ku yiri hooyana waxay tiri macal gabadh magaceedu uu isha wax walba uu ii sheegay tiri laakiin ma jirto hooyo maskaxdeeda caadi ah mararka qaar waxaa dhacdo dad aan baafin u samayno oo dad kale ay la soo xiriiraan gabadhii waatana caruurta anaga hayno lacaga looga qaato muddo la wareeriyo kadibna taleefanka laga dansado dhowr jeer dhacday taasaan diidaan kugu dhacday waa run waa mahadsan tahay kolley waa la raadina marka dambe DNA la qaadaa jirtaan u malayna meel si loo qaadana hadaan kala soo xiriirin ama waa DNA la raadina sida loo qaado aad iyo aad wax walba way jiraan magaalada horumarsan tahay waxaan rajaynayaa marka in dadka Soomaaliyeed ay garab ku siiyaan lambarka aan halkan kugu qorayno waa kee kan hadda adiga la soo hadlaysa ma daarto wax soo tuura mid kale masawiradiisa daa soo durna way aqoonsanaane waya la sawirada mid kamidana qaybta hore bilow muuqaalka saari doonaa maadaama ninka marxuun uu yahay waa haddan ku soo diraa inta ma ku soo diraa xagee ku soo diraa sawirada kalena igu soo diraysaa wax kale oo inta dheer aanu sheegayso oo barnaamijka baafinta ay ku diraysa miyaa jiro wax kale oo ku dari kara Cabdicasiis oo ma garanaane jazakallahu bi khayr ilaah ka abaal mari adigana kulli waxaan jeclaan lahaa lambarkana hadaan ku soo qora ama hadeer waaba mid ka haysto igu hadlaysid lambarkana saar masawirkiisana saar masawiradiisana saar way yaqaanin way ilaahay idinka soo raadinaya waya walaasha waa maasan tahay waxaan rajaynaynaa biidnillahi alkariim inaan isku soo laabano farxad iyo weliba xog in laga helo walaal waa mahadsan tahay masawirka ha iloobina ina abti hadeer saar insha Allah hay soo dhaw gudaana muuqaalka inta ayaan jeclaan inaan kusoo gabagabeeyo ilaahu noo rumeeyo yoolka riyada rajada hadafka leenahay qalbiyo faraxsan qoys midaysan iyo yawmal qiyaama janno toddobaadkan waa toddobaad kaliya ugu dambeeya aan haysano saaxiibada waxaan ka codsanayaa sabdiga axadda isniinta talaadada ilaa arbacada in halkan ay yimaadaan si aan u xoojino baafinada u duubno iyo haddii ay dana kale leeyihiinba saacadaha aan shaqaynayno waxay noqonaysaa 4, 5, 6 ilaa 7 8 xataa waa gaari karnaa laakiin waa inaad timaadaa si kale haddaan ku dhaho 3 saac 4 saac 5 saac 6 saac 7 saac 8 saac saasna u yaqaani dadka soo dhawaada